kulanti haboon idil ahaantiinba meel kasta oo naga daawanaysaan kani waa mid kamid ah barnaamijyada fanka ee aanu kula kulano fanaaniinta ha ahaadaan kuwii hore kuwii dambe iyo waliba kuwii dhexe fanaanka toddobaadkan waxa idinku marti ah barnaamijkan fanka mid kamid ah hormuudka da'yarka fanka oo aan kula kulmi doono aqalka uu ka degan yahay magaalada Minnesota haddaba barnaamijka ayaa goordhow inoo bilaabmi doona fanaanku waa Maxamuud Kaafi waxaan ku booqan doonaa aqalka uu ka degan yahay magaaladan oo inagu marti qaaday qaybaha kale ee barnaamijka kulli heesiisa ayaad maanta ka bogan doontaan in yar ayaynu jirnaa aqalkiisii barnaamijka waxaad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan idinka imanayaa magaalada Minnesota kamarada quruxda badan ee daawanaysaan waa Liibaan show oo kamid ah koleyba kuwa ugu qaalisan ee dhanka muuqaalada cajiibka aad ka daawataan barnaamij xiiso leh ayaan rajaynayaa waana ka heli doontaan daawasho wacan goordhow haanad raay noloshaydiyey naftiyo maankaygiyey sidii inagu loomanbaan nuux sadaa haanad raay noloshaydiyey naftiyo maankaygiyey sidii inagu loomanbaan dartaa nuux sadaa maruni dirnoxo nafsigu waa cadow jire waxay niyadaygu qabo maruni dirnoxo nafsigu waa cadow jire haboon mar kale ayaan idin leeyahay waxaynu bilaabanaynaa barnaamijkeennii Maxamuud Kaafi aad baad ugu mahadsantahay inaad igu caasinto igu soo dhaweysay aqalkaaga kulley Mareykanka dad badan oo aan dee joogin fikirro kala duwan bay ka haystaan noloshuna waxyaabo badan oo iyo waaya aragnimo badan kulley intii yareedaan joogo way iga korodhay markii ugu horeysay adigu timi ma xasuusta waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa Mareykan oo meelna kulley waa qaarade kulley anu markii ugu horeysaan waxaan xasuustaa markaan airportka ka soo degay aad baan u haraadana kadib ninkii kisbokarka yahaaba waxay weydiiyey you need a water buu yiri moogta so water buu isagu leeyahay moogta mayban markaa ku odhay laba marin intaan socon baan ku odhay do you have a water baan ku odhay biyo ma haysaa sodiga hadda lahaa biyo ma baahnin marka ugu horeysan soo galay taasaa laygu salaamay waxyaaba badan oo kalena way iska jiraan maanka aad kaaga warrami doona absolutely waa inaad halkan ka sheegi karin soo Maxamuud Kaafi waxa tahay fanaan daa'ir aad u cod macaan mashraxiyadiisa waliba anigu aan jecelahay intii aadan adigu fanka bilaabin aad heesada adigu leedahay aad qaadin biya kamid aha ma xasuusataa heesi aad dhageysan jirtay hal fanaan bayaan ahaanine kuwii kuugu horeeyay maqashay xusuusta kugu yeeshay way jiraan heeso uu qaado boqorka codkan aad u taagiri jiro horta Allah naxariisto Allah yarxam ninka heesiisa aad u dhageysan jiray heeso badan heesiisa wax yar mooyaane waan wada qaanaa fanka kale adigoo weyn maad bilaabina waxaan ka war hayaa ilaa iyo xilligii aad yarayd oo ardayda iskuulka aad u heesi jirtay oo halkaas ka soo bilowday xilligaaga ku jiray buu ahaa way jirtaa aad maxaa kamid ahaa marka ma kuwa tubacun bay hayeen kuwa iskuulkana kuma weelin jirtay ma heesaa tubacana way ahaayeen heeso kale fanaanin kala leeyihiin way ahaayeen way badnaayeen heesu laakiin kuwa tubac baan badnaa laakiin fankaagu caadi ahaan wuxuu soo shacbaxay intii imika qurbahan ee dambe inta wali Mareykan inta wali Mareykan timi heesa badan oo aad u macaan bad qaada gabdho fara badan oo la heestaa ma jirtaa wali inaan la heesin oo isleedahay leele mala hiblaayo ayaa hadii maanta fursad lagu siiyo heesta talantaaliyaad la qaadale wallahi horta hablo badan oo aan wada heesin way jiraan ويريهم بدو مركين تنا هبلا وده هسنا كل فرحة فيسكو كله إن الله سوا لقى ممرمان صح يرجي
hodan cabdiraxmaan hodan cabdiraxmaan waan wada heesnay laakiin heesa labadayada weli maanaan wada qaadin laakiin heesa kale oo barnaamijyada somaliland barnaamijyo badan oo noocaas waana ku kulanay laakiin farxi fiska oo fanaanadan aada u taageero xagga waa boqoradeeda codka كل مرة ونسلنا السوق بتاعنا كل dadku markay fanka galaan qof baa gacan qabta yaa oran kartaa alla ilahay qofkaas iyo kaasa ka koow oo la'aantood halkan maan soo gaareen walahi horta fanka markaan bilaabay heestiisa ugu horreysay markaan qaaday horta cid fan gutrisaasa loo heesaa qaabkaasa muusiga loo galaa saasa wax loo laxameeyaa horta ma jiran anagoo iska laxameysan oo heesaysan baan fanka arkayna ku dhex jira heesteeda ugu horreysana saasay ahayd laakiin intaanan markaan heesaa qaaday kadib way jiraan fanaaniin iyo abwaanin adigu aada garab iga siiyey magaaladan markaan usoo guurayay inbuu fankaygu ahaa halkan waxaa garab iga siiyey iskalaaji baa kamid ahaa mukhtaar dalmaryaraa kamid ahaa raggii aada yani ii gacan qabtay markaan magaaladan usoo guuray laakiin kuma oran karo qof baa fankayga oo dhan oo gaar u ahaa waxaa jirta heesaad qaado oo aada nowcan baxday kolley qolyaha kaa agdhowna aan in badan ka maqlayay heestaasi inay adiga gaar ku ahayd ama dareen gaara ku lahayd erayadeedana ay kamid yihiin hal iyo nirig baynu noo ilaa isma huri karee jacaylkan igu habsaday insha allah wax khayr qaba inuu kugu habsaday allah kaaga dhigay hareeraha mayla qaban horta jacaylka ma lagula qabto ma laga caawiyey hablaad isleedahay imika way xanaaqi haddaad maya tidhaahdo kolley yani inaad run ka sheegto wax walba way wanaagsan tahay horta way jirta heestaasu hees qisadeedana runtii aniga aan lahaa bay ahayd abaankay sameeyey in anigu naga sameeyo aanu isku dhaweyno aada iskugu dhaweyn marka heestaas way jirtay jacaylkaasna waa jiray laakiin wax halkuu ku dambeeyey laakiin lagama hadlayo lagama hadlaya waa tahay horta heestaasaan jecelay furitaanka barnaamijkeena ka dhigano mar kale barnaamijku waxaa idinkaga imanaya aqalka maxamuud kaafi uu ka degeeyay magaalada Minnesota haddaad in badan maqli jirteen stuudiyaha iyaga meel heblaayo stuudiyaha imika waxay maraysaa aqalka uu fanaanka maxamuud kaafi ka degeeyay magaalada Minnesota ayuu barnaamijkaasi uu idinkaga imanaya Liibaan Show waa qaybta kamarada heestaasi macaan ayaan idinku soo dhaweynayaa naftiyo maankaygiyey sidii inagu loomanbaan dartaa nuuxnuuxsadaa haanad raay noloshaydiyey naftiyo maankaygiyey sidii inagu loomanbaan nuuxnuuxsadaa maruuni diirnaxo nabsigu waa cadow jire ohay niyadaygu qabo maruuni diirnaxo nabsigu waa cadow jire ohay niyadaygu qabo haddaad igu noqotay nacab jacaylka nitaaqiyo dhammaan nacabkay la jira
ogo 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 sina kuguma noco haddaad igu noqotay nacab jacaylkani taaqiyo dhammaan nacabkay la jira ogo 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 sina kuguma noco nadraay noloshaydiyey naftayda badhkeediyey waxaa dumar dunida nool midii ugu nuuraysaa nadraay noloshaydiyey naftayda badhkeediyey waxaa dumar dunida nool midii ugu nuuraysaa haddii aan ku naawilo jacayliga galaynuda nasiibku dushaada dhigay haddii aan ku naawilo jacayliga galaynuda nasiibku dushaada dhigay haddaad igu noqotay nacab jacaylkani taaqiyo dhammaan nacabkay la jira ogo 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 sina kuguma noco haddaad igu noqotay nacab jacaylkani taaqiyo dhammaan nacabkay la jira ogo 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 sina kuguma noco heesaad macaan bay ahayd maasha allah kolleyba dee hibada nooc kastuu qofku leeyahay maasha allah la yidhahdaa waa iska sunne waa tahay fanaaniinta waxaa la yidhahdaa had iyo jeer ale hadalka iskuma wanaagsana ma laga yaaba adigu hadalkoo kale inaad ku fiicnaan leedo xataa kuwa majaajileeya waxyaabo kale ku darsada aad noqon leyd horta bashaaro xagga majaajilada waan ku wanaagsanaan lahaa laakiin xagga hadalka badan aad ba lagaga wanaagsan maxaad u malaynaysaa haddii lagu odhan lahaa majaajile inaad matali leyd ma nin weyn ma oday nin weyn baan matali lahaa nin yar wax lagu ordo mise actarka hablahoo dhan jeceliina laga daba yaaqay kaasad matali leyd waxba isku darsan lahaa maxaad u malaynaysaa inay ka mid yihiin waayo aragnimada fanka laga dhaxlo waayo aragnimada fanka laga dhaxlo horta waxaa ka mid ah inaad horta wadamo badan aad aragto in aad yacni waayo aragnimada fanka waxaa ka mid ah inaad waxyaabo badan safaro badan gasho oo dad badan barato oo dad badan aad barataan asxaab badan bulshada fara badato weli intaad bulsho la kulantay ama baraha internetka baa lagala soo xiriiro ama iskuba arka barnaamij iyo xaflade su'aalaad jawaab weydiin ma lagu weydiiyay ama wax ka yaabiyay waa jirtaa ha
oo hadda bay taaganto tan hadda weydiinaysay ayaa waa kamida Bishaaro inaan intay mashrax kuugu tibi adigoo heesaya ama markaad heesta soo dhameysay ma ku tiri waan ku jecelay may hadday ku odhan lahayd maxaad ku odhan lahayd hadda ku jantay maalan habla lagu wada ka waran dad ka helina laguma diidi karo waa inaan Allah ila wada ina wanaagsan baatay waa hagaag waxa jira fanaaniinta had iyo jeeraale dad bahwadaag fan leh oo si gaar ah wada shaqeeya ama wax soo wada saara ama la isku xanto yaa kamid ah abwaaniinta ama fanaaniinta aad idinku gaar u tihiin bahwadaagta fanka horta anigu abwaanan aad saaxiib u nahay mar walba aan kala dhamaan mar walba aan wada socono waa abwaan Cabdiqani Xaaji October abwaan weyn aad baan salaaminaa abwaankeena weyn absolutely ninkaas horta ninaan aad isugu dhownahay hadda aan aad isugu xidhanay jira ninkaas heesa badan u leeyahay qaadin haddana waa saaxiibkayga xagga fanka hadda ninkaas mar hadda oran karaa aad baa isugu dhowday dhalinyarada waqtiyadan dambe soo heesa waxaa jira dhaliilo fara badan oo dadka qaar badan oo fanka ka agdhow ama u saaxiiba ama bulshaduba ay u soo gudbiyaan waxaana ay ku dhaliilaan dhaqankii in la baalmaray hadday tahay dhanka ereyada hadday tahay ciyaarta hadday tahay mashraxiyada qaarkood dharkay xiranayaan ficiladii iyo akshanada baan idhaahda ee la sameynayo waxa tahay fanaan roolkaas oo kale da'yartaa mid lamid ah inkastana aad u daawado heesahaaga waan anu kolleyba imika cabdigood kugu noqonayn haddana maxaad adigu odhan lahaydeen fanaaniintaas sideed u aragtaa horta waxa la yidhi wixii cusub caalamka jecel Soomaalida ku mahmahda fanka Soomaalida dadku hadii jiraan waxay yiraahdaan dadkeena waaweyn waxay yiraahdaan qoladan dambe waxa la qoladan dambe playback bay ku heestaayo waxa weeye wajiixin bay tiraadaan moogta laakiin anigu fanka waxaan waxyaaba casriga ah fanka lagu soo kordhiyo aad baan soo dhaweeyaa marka fanaan yaro aadaan jeclaan saaxiibnahay Bilasimba fanaan aad u budbudo aad u cayaara waxba ku soo kordhiyo fankii fanku de in meel taagnaado de Mareykanka imika ku sugan fankiisu halkii uma taagna Michael Jackson markuu hees jiray maanta markuu hees jiray wixii isku mid maaha marka fanka wax casri ah ku soo kordhaan laakiin miyay tahay sidii qaarkood u dhigayaan oo kale inaad dhaqanka imika fanka marka la eego waxa uu ahaa kii gudbin jiray anshaxa dhaqanka wanaagsan wacyigelinta ma moodataa laftarkeeda inay meesha ka baxday oo suugaan imika murtida noocaas wadata aydan qaadinba horta way jirtaa taa waan ka soo horjeednaa laakiin qaab maslaxiyad cusub inuu fanka Soomaaliyeed yeesho baan horta mar waan soo dhaweynayaa Bishaaro aad ku haystay maalmood waxaan dhageystay hees baan dhageystay gabadha qaadi jirto nin fanaan aan saaxiibna asnaadaan salaamayo oo qaado horta fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay number 1 marka ugu horeysa heesta macnaheeda ay aad u dhun raacaan oo ogaadaan heestana waxay ka hadlayso iyagu qalbiyada ahaan ay turjutaan baan horta aad u jeclahay hees baa jirta Bishaaro fanaan oo qaado inkastaan jeclayna magaciisa la ka sheego heesta gabadh baa qaada Xabiib Xasan Tooxo baa qaadi jirtay marka heesta qisadeedu waxay ka hadlaysay in gabadhu uur yeelatay markay uur yeelatay ninkii uu ku diiday hadda ma garanaysaa marka fanaankii heestii muu bedelin hees talantaale kama dhigin laakiin wuxuu qaaday habka iyadu u qaadisay marka ninkii baa le urban yeeshay oo halkaas wax maraya taagiyay marka waxaan aad fanaanteeda aad ku jeclaan kula darmaya inay heesta marka taamiyaan la oran karin isaga kamaba ahaba dhaqan baal maray mala ereyada laftooda aanu fahmin waa taas waa sidaas ay muuqataa laakiin dhaqanka dhaqanka uu noqonaysaa haduu yiraahdo urban yeeshay kulay dhaqankii telemaba yeelan kare waxay ugu daynaynaa un ereyada aanu fahmin waa tahay dhanka kale guud ahaan hadaba maadaama ay ahaayeen mawduucan haddaan hal su-aal oo kale kaasii weydiiyo fanaaniinta kuwa hormuudka intaba ka ah dhaqanka lumaya miyaanay ahayn iyaga iyo abwaanada kuwa koobaad loo nisbayn karo aad iyo aad may wayta waxaana ku noqonaysaa dee kulley horta Bishaaroy wadankii qurbo fanaaniinta wadankii joogay fanaaniinta qurba jooga horta wax badan bay ku kala duwan yihiin fanaaniinta wadankii jooga kulley fanaan wadankii jooga dhaqan gabadha ma ku dhigdhigaya ama waxa sameynaya horta ma daawano ma arag oo credit number 1 iyagan ku siiyay qurbaha fanaaniinta qurbahana waxa keenaysa dhaqankii wadan ayaa la qaatay qurbahan
يعني dadkan baa gaaladan baa dhaqankooda la qaatay marka habliyo wixii wasa waa la iska wada yaacaya kadib heesaan inaan kugula jirin oo aan idin ku dhigdhigin sababta ma qarxada sheekadaas ay ma jirta alla ila dida way inta lagu dhagaa la oranay ha marka inta lagu dhawaado marka hablo laga durkaba maaha laakiin de waxay ahaydana ya in la yara hagaajiyo iyagoo asturan lagu dhawaado way fiicanta laakiin iyadoo la taabanayn inaad u dhawaato dafanaantii hore hablo iyo rag iyo dumarku iska agheesi jiray laakiin iyagoo asturan iska agheesayeen oo ay yani heesan turjumayaan oo yani faraha ay ka hadlayaan laakiin farihii heestii lagu turjumi jiray imika inanta lagu turjumayo iyadoo faraha iyadoo booski soo gashay waa tahay dhanka wadaniga oo kale aad baad uga qayb qaadataa waxaa jirta heesa fara badan oo wadaniga hod qaado haddaan kaa codsan lahaa kuwa wadaniga mid kamid ah teebad barnaamijka inoogu dari lahayd barnaamijka heestii ugu horreysay aan u qaaday qaranka Somaliland jamhuuriyadda Somaliland marka hore waxaan aad wada salaamayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga qaranka Somaliland inagoo qaybta salaanta u soo noqon doonaa dad heesta iyo cidda samaysay heesta horta heesta aniga sameeyay laxankeedana aniga sameeyay muusigana waxaa tumaynina noo saaxiibno isnaan salaam horta waan arkayo laxamo badan aad leedahay laxamaduna markaa iskuma daydid waad isku daydaaba ayaan ku odhanay si wanaagsan baad u samaysaa fankaaga keed hor bilowday inaad heestiyana laxamada samayso inaan laxamada sameeyo laxankuna waa iska yimuune isma laan xitaa markaa laxan buu ahaa laakiin markii dambe muusig la raacay uma ogaadin inuu laxan yahay marka heestana laxanku waa adiga laxanka aniga iska lahaa midhaan ana sameeyay muusigna waxaa oo macamili waad ku dartay midhaan waa ku dartay kooxdii isku filan bay noqonayaan oo muusigu bayno haray muusigu bayno haray waxa iga dhamaa muusigii kabanka hadda ayaan filayaa wow labadaana waqti ma kabanka alayo
وهاك ما شاء الله وداني قوم بين وراني نابا wadaniga abwaan kee weeyaan abwaanka ugu fara badan aad heesihiisa ama ay ugu badan yihiin aad heesaha ka qaadato anigu horta nin iska international ana abwaaninta kan heesiisa ka helaba waan ka qaataa laakiin heesaan qaado different abwaanin baa wada leh hal abwaan oo malaha laba heesood aan ka qaadaa ma jiro dhammaantood abwaan walba hees baan ka qaataa marka kuma oran karo abwaankaas aan badanaya haddaad haysato fursad ah inaad faaniskaaga iyo dadka ku taageera aad waqti la soo qaadato iyo barnaamijyo wadankeebu ahaan lahaa wadankaad ugu jeclaan lahayd inaad horta balkow cagta soo dhigto horta bashaaroy wadankaan ugu horeyn lahaa wuxuu noqon lahaa horta wadankaygi hooyo somaliland ayuu noqon lahaa burco iyo hargeysaba allele aad iyo aad wadanka labaad ay soo raacana wuxuu noqon lahaa wadanka adiga degantahay hadda ingiriiska marka dad badan baa halkaa kaa jooga asxaab badan baa joogta aan aad su doondoonin absolutely bayna ku soo socday ka degdeginaan leenahay magaalada burco oo magaaladii aad ka timi asal ahaan aad u dhalatay maanta miyaanad barnaamijka wax hadiyada u sidin la barnaamij saaran ugu sidin taas ma dhici kartaa anaa baydhiba ilaa burco aan wax u keeno horta absolutely baraysi baanan qaadin waraysigan makii kuugu horeeyay gabadh wariyaha kula kulantaa waa kii ugu horeeyay alleelena fursada helay aad baan ugu faraxsanahay kulay dhanka wiilasha oran meeno liibaan show iyo aad baan dhanka la igu horeeyay marka dhankii hablaha hadaan ka noqday ma sha Allah marka hees badu sida burco sida uu sameeyay abwaankeena weyn aan Cabdiqani Xaaji October asuna salaamayo asaguna reer burco asaguna marka heesta waxa la oran karaa aad baad mala uga fiirsateen heesta aad baan uga fiirsanay heesta markii la sameeyay Facebook aan ku soo qoray heesta Cabdiqani Xaaji October baa sameeyay laxanka lilaaw nina waana maxamed guun sagaraado salaamiyo laxanka sameeyay heesta Facebook aan ku soo qoray yaan muusigeeda ka tumanna haye reer burco baan ari moogta reer burco waxa isku raaceen bulshaawi laga tumo dadkii kale shacabkii kale hadlayeen furle bateen codadkii baan markaas u tiriyay codadkii furle ayaa ku batay intaan burco ka tagay ayaan markaa arkay de muusigiistii inuu furlo badan yahay ayaan furle markaa heesna furle labaduba muusiga aad u macaan bay tuwaan bulshaawi iyo furin laba وهاك هسه سنة مركها هتبقى وطارينا كل وين سوقي غير برعنا لما أنتوا بنتينا دعوانا يسوي حلنا هاي هسه سنة يدين سهني ده لكن كإلا بلد وين لا بريدة بدأ جنبه مقالة دي سون هوني يستو بس الصناعة نقد ونكسر
adiga badhaadhiyo barwaaqada hogaansho balliyada xareediyo togaga burqanayada barti laguma naystay burco laguma naystay boqorkan ku dhaartee dhidhankaada wacan baahidan u qabo naftaa ku baseesho boholyowdayawga burcoy burcoy boholyowdayawga burcoy boqorkan ku dhaartee dhidhankaada wacan baahidan u qabo naftaa ku baseesho boholyowdayawga burcoy burcoy boholyowdayawga burcoy barbartii aqoontana halkii laga bilaabay halkii lagu bilaabay burhaantii dalkaygiyo burcadan ku faana barbartii aqoontana halkii laga bilaabay burco laga bilaabay bagae tugdheerey basiyo colaadiyo borkama yeedho bariyo galbeedka bulshadaadu nabadwey bulshadaadu waa nabad bagae tugdheerey basiyo colaadiyo barkama yeedho bariyo galbeedkawa bulshadaadu nabadwey bulshadaadu waa nabad boqorkan ku dhaartee dhidhankaada wacan baahidan u qabo naftaa ku baseesho boholyowdayawga burcoy burcoy boholyowdayawga burcoy boqorkan ku dhaartee dhidhankaada wacan baahidan u qabo naftaa ku baseesho boholyowdayawga burcoy burcoy boholyowdayawga burcoy agaag kulli waxaan u malaynayaa qof meelaha burco ka yimo heesta isagoo fadhiya dhageystay inaanu maanta jirin kulli way wada taagnaayeen baan filayaa alla ilahe haddii imika lagu wada dhiibo heeso isugu jira markaa kuwa daadisa kuwa jacayla kuwa wadaniya lagu yidhaahdo mid ka qaado teebaad ugu hor qaadan leh de bishaare horta aniga iyo jacaylku ma kala dhammaano
waxaan oran karaa un jacaylka waxaan banaaday xaggiisa jacaylka nacaybka halkiisa iga jiro ka waa la waran dhimanaya anigu jacaylka xagga jacaylka waa wada dhimanan anigu wada gudgay oo markaa sidaas saaxiibo u tihiin ha aad iyo aad marka aad baan isugu dhowna laakiin miyaan la oran karin fanaaniintii iyagaaba jacaylka loogu qaatayo mar haddii afkooda ku cilbaxayaan heesayaan mar calaacalayaan markay qofkii sanifaan hadday doonaan kuba daadinayaan de bulshada kale caadiga way dhaamaan aad iyo aad waa badanta inta lanagu ammaano inta laydinku ammaano heestii jacayl aada istiraahdo malaha allayle abwaagii heestaa qoray talow maadigu ku ogaa jacayl dee da-ayo un ka hadlaysay waa tee horta heestaas waxay ahayd heestaa waxaa qoray inaanu saaxiibnahay nadra le horta heesta anaa qaada sa si fiican baan u garanaya heesta anigu marka hore maan ismaan lahayn aad qaadi oo aniga abwaanka markuu sameynaya iguma talagelinaya heesta anigu qaado isaga abwaana isagaa doonaya heesta inuu kusoo shaacbaxo lamaroon isaga uu qaado doonaya ay heesta inaan saaxiib nahay qays baa layahaa aad baan ku salaamaya abwaan ninkaasaa heesta sameeyey heesta markuu sameeyey laxankii ayuu no heestana sameeyey laxanka saar heestii baa laxanka saar laxankii anoo wada ayaa heesta anigii wada gashaba oo aniga inay khusayso oo aniga iga hadlayso ayaa la moodayba haye heesta abwaankii inaan aad saaxiib ahayna oo qisadu isaga ku dhacdayna wuu ahaa waa odhan kari waayo markii abwaan heesta iska soo wareeji absolutely laakiin waqti baa siiyo 4 bilood iyo 3 bilood heestii markuu hayay musigii wax walba hayay soo saari waayay ayaan kasoo guuray markaa magaalada cudurdaar baad u heshay heesta Ahaa. inaad marka la soo wareegto haye ayaa ku no waa iido heesona ima diyaarsana heestii ila way kaaga dheganaydeen ha makaa gooda abaanku wuxuu yidhi heestii allayle adaa xaq u lahaa qaado marka heestiisa waa heestaa heesto marka waa heestaan nadra le hees marka magaca miyaad dooratay mise iskaga dhacay un magaca nadare magaca abwaanka way wada socotay magacii hees magacii aad markaa nadradaadii taadi baad u niyeysatay ma nadradeedu ma ahayn nadradeedu ma ahayn laakiin heesta yani macnaheeda ulajeedka heesta ayaa aniga xoogaa aan siri maxbuu talo talo ma waxbaa jiray fanaaniinta daayartee baryahan dambe heesa keebaad odhan leedaa kaasaa kowkaa dookaaga odaada dhegeysataa fanaaniinta dhammaantood waan wada dhegeystaa wada saaxiibna unahay fanaaniinta badanka dooq ahaan laakiin dooqaan haddaan ku dhahdo yani dee dooq fankiisa halkan ninaan imika yani aan dee aada u taageero yani taageerana aanu ahay yani aan jecelahay inuu halkaa kasoo wada horumar gaadho waa nimcan hilaac fanaankayga aada baan u salaamayaa يعني فنكا إنك أصلا في نمبر 1 سيسي ودقيستا نكرنا ويسو راعة أو اللي هذا موسيقاس وريتش يعني كان أسنا أنا سلام يو لكن فنانين تدمنتو أو وده دقيستا أو هذا شالع aad iyo aad hees baa jirtaa aan aada u jecelahayo maalmahana tobtanka aniga ii saaranba dhiiggii layga qaadiyo dhinacii lai dhigay dhugasho dhimasho la ii badi yaa ku sameeyey heestaa heesta nin abwaana ii sameeyey waanu saaxiibnahay aniga imu sameyn laakiin heesta wuu ii dhiibay abwaanku oo haye markaad leedihiin ma moodaa inaad xeebtii berbera tilmaamaysaan ood u tilmaamayso qof hargeysa jooga tii iga qabsatay steedyada maraykanka waxaa laygu yidhahdaa un halkano dee waaba meel hadda gaadhigu 24 saacadood diyaaraduna 5 saacadood oo aan shaqiyo shuqulba isku lahayn waa koob oo 3 iyo 4 iyo 50 wadan oo isu tagay wey oo kale u ka dhigan yihiin هذا يوروب waxay noqonaysaa eridan state kamid uma noqonayna ma hadda laga bilaabo qofka uu soo socdo waxa la dhanka safarada aad uga digtoono magaalada ku soo digtoon iska iimaanso laxankeedu heestaa sidoo u dhacayo cod ahaan hadda inagu maqashiiso dhodii hore madaadi jacayl bay dhaansado ruuxiya la fuqo galo dhimbil dabaweeyaan soo dhacsay wahagaag aad iyo aad bay u macaan tahay mar kale waxaan isleeyahay bal intii jacaylku daashaday heestaasi aynu dhuuxa ku shubtaane daawasho waxaan baan idin leeyahay halka aad nagala socotaan waa aqalka uu ka degaya fanaanka maxamed kaafi magaalada Minneapolis maxamed kaafi iyo maxamed kaafi labadiiba alla ilaahay labadaba isku qaado ma wax wali cabdi kaafi ma ku darsan saddex way noqonayaan Soomaa
magacyada qaybta jumladu ka haystaayo uu iska magacyo badan mar hadad kaafi ku darto isagun baa sheeganaya barnaamijka halka ayaad kala socotaan marka la heestaas daawasho wacan ruuxii lafuhu galo dhimbil dabawe rudi hore egmadaadii jacayl bay dhaansado ruuxii lafuhu galo dhimbil dabawe kolkii la dhuubtay dhuunigii ka go'o dadkii dhawaaba dhakhtarigu yeedhi kolkii la dhuubtay dhuunigii ka go'o kolkii la dhuubtay dhuunigii ka go'o dadkii dhawaaba dhakhtarigu yeedhi dhigi laga qaadiyo dhinacii lay dhigay dhabarkaan u jiibsaday dhugasho dhimasho lay badiyey dhugasho dhimasho lay badiyey dhigi layga qaadiyo dhinaci lay dhigay dhabarkaan u jiibsaday dhugasho dhimasho lay badiyey dhugasho dhimasho lay badiyey mana soo dhawaado dhafna waan istayne dharartiyan ku waayana dhalandhool ku waasho mana soo dhawaado dhafna waan istayne nafta dhirigeliyo dhaqaq joogsigaaga ubaxa la dhacaya nafta dhirigeliyo dhuldacay lamoodi nafta dhirigeliyo dhuldacay lamoodi dhaqaq joogsigaaga dhabtiya la dhacaya dhigi layga qaadiyo dhinacii lay dhigi dhabarkaan u jiibsaday dhugasho
dhugasho dhimasho la ii badiyey dhugasho dhimasho la ii badiyey dhigi laga qaadiyo dhinacii lay dhigi dhabarkaanu jiibsaday dhugasho dhimasho la ii badiyey dhugasho dhimasho la ii badiyey dhigi laga qaadiyo dhinacii lay dhig dhabarkaanu jiibsaday dhugasho dhimasho la ii badiyey dhugasho dhimasho la ii badiyey waa hagaag isu soo naqad wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay kolley rabadaantii baan kasoo baxnay oo ahayd bil cibaado iska maalmihii ciidda ayaa lagu jiraa dadkoo dhanna waynu kasii dabagelinaa ciidda ciid mubaarak baan leenahay yaad jeceshay inaad halkan fursada uga faa'iidaysato oo ama adiga noloshaada qeyb weyn ku leh ama ehel ama asxaab ama aad uga mahad celinaysaa ama salaamaysaa horta waxaan bashaare aada u mahadsan tahay horta waxaan aada ugu mahad celinayaa waalidkii number one hooyada iyo aabahay oo aada iyo aada aan leeyahay ciid mubaarak hooyo la-aantiin yani ma noolaadeen yani halkan ma joogeen waxaa igu soo xigaa aniga eedaday caashe maxamed maxamed oo ah hooyadeeda labaad oo aadaan u jeclahay waxaan ku leeyahay eedo ilaahay cimrigaaga iyo caafimaadkaaga waa dheereeyo dhammaantiin walaaladay iyo ehelkayga iyo intay garanaysa muuqaalkaygaba taqaano waxaan leeyahay ciid mubaarak dabeecad ahaan dadka aan ku aqoon had iyo jeer waxay u yaqaaneen maxamed kaafi inuu yahay nin aamusan laakiin waxaa tahay nin kaftan badan oo qosol badan taasna maanta aan fursada uga faa'iidaysanaya qayb ka mid ah dabeecadahaaga dadka inaan baro maxaad u malaynaysaa fanka in laga dhaxlo fanka horta waxyaabaha laga dhaxlo waxaa ka mid ah xishood badan waad xishoonaysaa inaad xishooto yani is ilaaliso yani inkasta dee imika de mar walba iska meediyadu iska wax laga faa'iidaa miyaanay jirin fanka horta fanka soomaalida walaalo magacun baa laga faa'iidaa magaca ma dhacdaa mararka qaar inuu si kale loo adeegsado oo waxyaabo khaldan lagu weydiiyo ama mararka qaar dhibaataba kuu keeni karo waa dhici kartaa magacu yani kolley aniga weli dhibiguma keenin oo dhib kama arag weli dee asxaabteeda iyo bulshadeeda iyo taageerashooda intuba dee kaafi mooyaane weli wax dhiba kalamaan kulmin laakiin way jirtaa oo waa dhici kartaa haddii imika uu ku yimaado qof dhalinyaraah iyo ku yidhaahdo maxamed kaafi oo fanaan baan rabaa inaan noqdo ma kula talin lahayd fanka may marka adigu soodiga ku jira qofka wuxuu isweydiinayaa hadduuba isagii ku jira maxaanu qofka kale ugula talinayn dee badweyn inay ku jiraa unbaa tahay oo anigu dheed horta bashaaroy aan fursaddaa ka faa'idaystay su-aashaad weydiisidee horta ismaley fankaad kusii raagtay oo iminkaabad bilowday oo sanadii ugu horreeyaad ku jirtaa waa runtaa laakiin waxyaabo badan oo fanku fanaaniintu runtii sooma sheegtay fanku horta waxyaabaha ugu number one yani cilada koowaad uu leeyahay waxa weeyaan xiriirka qaybta xiriirka ayaa horta aada u yaraanaysa inaad faamilkii inaad dadkii yani aada u xidhaa asxaabtaadi aada u xidhiidhaan hore waayo yani xiriirkii waa xibaa yaraanaya maalin walba qof aad baranaysaa yani qofku kuusii dhiibaya marka dadka kaa fara badanaya dadkii baa markaa kaa fara badanaya markaa xaggii xiriirkii ayaa aada isugu yaraanaysaa marka cilada koowaad fanku leeyahay horta waa taa kumana tala jiro insha allah inaan fanka yani sanado badan kusii jiro oo dee yani dadkeena soomaalida fanka aada waxay ka aaminsan yihiin qofka fanaankahay yani nolol ma leh oo life kuma jiro laakiin sidaan ka warhayo fankana waad ku jirtaa wiil da-yar ahoo aada u shaqaystana waatay marka miyaan la odhan kara intaas waa fikir khaldane labadii waa laisku wadi karaa waatan doonayaba inaan dadka ka dhaadhiciyo in yani qofku fankiisana ku jiri karo noloshiisa kalena uu wadan karo uu shaqaysan karo
marka de qurbahana weliba qurbaha waa number one wadankii de yani wax badan aan camal badan oo saa laga shaqeeyaa ma yaallo laakiin qurbaha fanki waa laba 2 days waa Saturday Sunday unba ma garanaysaa fan lagu jiraa 5 days kalena de waxaan kula talinayaa fanaaniinteeda kalena saas oo ma horta intaanad ka bixin fanka anaguna waxaanu kaaga mahad celinaynaa codkaaga hibada leh ee aad nala wadaagtay goorahan bas waxaan isweydiinayay labiskan oo aad qurux badnaa dhanka kalena ahaa midiga cusba labiskan waa waxaan u malaynayaa yaa qaadan jiray awal horta wala hindu baa la hindu waa hindigan aad baan u daawan jiray bilowga marka waxaan kula dardaarmayaa saxaabteeda iyo dadka fanaan mooyaane horta inaan cid kale xiran dharka oo waayo sababtoo ah inuu fanaan gaar u noqdo ayaan soo xiratay aad iyo aad ayaan soo gatay marka ilaa iyo kabaha iyo waxaad aragtaa inay qaab ka duwan ay yihiin kabayowga caadiyan aynu aragno aad hada wada jeeta walaalo aan cilad kala jirtay bahalan dheer yihiin soo kabtan imika ku cagtan kuma jirto kabtan waad ka saari kartaa oo cagta kale waad gelin kartaa waad kala bedeli kartaa labadeeda marka labadaba way galaysaa tan waad ku xidhan kartaa tan waad xidhan kartaa marka meesha waxa ka baxaya mashquulkii ahaa haday labada kabood isu ka weydaartaan sheekadu waa ka baxaysaa meesha wati ka soo horbaxda waa gasho tii ka soo horbaxda oo dumar ma leeyihiin dumarku maay fanaaniintii dadka aad degdeg badan baan hayo tiiga soo horbaxda waan xiran ma ragum baan hadda la hayaa ragum loo dhargareeyaa laakiin dumarkuna yimaadaan wax badan oo qaran jiraan dumarkuna inay soo socdaan balgada ma jirtaa su'aalaad jeclaan lahayd inaan maanta ku weydiiyo bisharoy may wixii ba dhamaysaba wixii aan doonayay inaad weydiisaba dhanka majaajilooyinka ama Soomaalida actarada ah yaa kamid ah kuwa daawatad ku qosasho laba narta aad aan u daawadaa kuwii hore mise kuwa dambe kuwa waqtiyadan dambe kuwii hore wada qosol baabay ahaayeen runtii wada talent bay ahaayeen baa la odhan karaa Sooraan iyo Jawaan meel loo dhaafo male hadda Sooraan iyo Jawaan meel aan dhaafo male waxaa jira nin kale oo isagana la yiraahdo Maki Xaaji Banaadir ninkana aan aad hadaladiisa isagana ugu qoslo gabadha surmindi la yiraahdo wali isbeedaan arag Naciima Joker wala saaxiibna aad baan salaamay aad baan u taageerano ahay aad baan u salaamaya waagaag alla ilaahay mar kale waxaan horta u mahad celinayaa waa inta qosolka weyn u baahnay waxaan u mahad celinayaa dhammaan horta intii barnaamijka nagala qayb qaadatay oo ugu horeeyo baan leeyahay Liibaan Show aan waxaan isleeyahay qudaydu ma caawimo talaadada waa Bishaara Show Liibaan Show aad kana mid ah la fahantiisu dadkii halkan igu soo dhaweeyay yaa kamida cid saaxiibadaada qofka ilaa yaraantii ilaa xilligan isla soo gaadheen dooran karto wuxuu ahaa kii ugu riiqda dheeraayeen dadka isugu jeclayn ninkaas halkan lama joogo waxa la yahay ninkaas Axmed Cali Cabdullaahi Baahilaawe saaxiibkii Axmed aad baan u salaamayaa kulli waa intii aan qurbaa joogay ninkaas maana rag laakiin waa ninka ilaa ciyaalnimo ilaa heerkan aan wali saaxiibka nahay wajiraan rag kale oo isku waqti aan ahayn laakiin ninka aad baan isku dhaweyn ninka aan saaxiibnaa isna aad u salaamayo Cabdi Faad Cabdi oo hadda markii ugu dambeysay wadanka Suulaan deganaa isagana waa jiraa marka labadan nin baan aad yani waqti kan laayimka mid ma jira aan adimka meel ku ogeyn aad jeceshay inaad baafiso aan baafin hawada u marino ما والله أصحابتي رجل يعني يرانتي سكسو برني دمانتي ولا كورها أنا أقول لكن برنامج كان سائل مصطفى حسن نور بان كبعفنا إياه عمرك يجور دم بيسكو سبنيد مجال نيروبي عدي ملكو أجنا وحن كعد سنة يعني يجسوا هجاتي برتان كلها هاي إنترنت كا ما سجل أنا صدق كلام السلام يا قبل كلام إكران عرالة إكران عرالة صدق كلام السلام يا وحن كلام السلام يا إجل شو إجل صالح absolutely السلام يا الكاسس له أرتقون ربع لقوي خمسة مر لاس عنود با كتر لاس أدوك بري رادن با سمو ذا الكعسة أنت الكعسة رادن لا يبي دبو الكيكة تيمي عادي عاد بنودا سلامينا وهاج هستان شلال هاي نكو صحرنا وإن هست كقالية تطبقنا كقالية أنا قاعد أقول إن أنا قلي قاضي نسكني سندوناي نذرة اللي يراه
nadra waa heestan hore uga soo sheekeynayna dareenkeedii iyo intaba heestaas ayaan jecelahay inaan kugu soo gabagabayno mise mid kale inoo doorlay mise dookhayga diiday الله وهاك دمانتين أدي عاد بدو جمهد سنتين وقت جينا قالجا يبرنامج كإنتي عدنا داونيسين إنتي عدنا لسعتين هالكاس أيانو كسر جبيننا برنامج كي هستان يجي كسر حرينا أنا ونظران وبشارة بانزاي يدنا لسعتين اللي يبان شغل تكمرة دايو هذا ما بنتي نقلا قيب قاضتي يوجه الريان وايد مان أبو عبد الغني حاج أكتوبر دعاله وبح تدمان مسوي ذا كوبي كرا حرت عودني عادي عاد بومهد سينهن محمد كافي سلامي كرا عادي عادي مركز الشرف بيت هاي منك ريحة مركز تورتانو مضمون بدل ما كل الله يلاه والله كل بدأ سكاء قال كل بدأ برجع هراء أتكو يعني كنتي فنانين تجاء ذيران كوهمي ترينا المرة كل ما تاي شرف وين بيت أنا شسلوك ولا عاد بشارع بعدين الله كل ما عاد كنكو يعني عادكم ما سنتولال thank you منك هاي قوي مرة بعد هدي عاد ما سنتاي مركله نبت قليل شيدي نفتي يومان كيجي سيدي نقول من بان ترتاح نوح صدا ها نتراي نولو شيدي نفتي يومان كيجي سيدي نقول من بان نوح صدا ماروني دير نحو نفسي قوة عدو شيري وغيني يضيق قبوم ماروني دير نحو نفسي قوة عدو شيري وهيني يضيق قبوم هدا ديقو نغطي نعب جعايل خني تاقيو لما نعب كي لتشيرا وغو 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 سينا كوغو منو هدا ديقو نغطي نعب جعايل خني تاقيو لما نعب كي لتشيرا وغو 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 سينا كوغو منو
naftayda barhkeediyey waxaa dumar dunida nool midii ugu nuuraysaa haanad raay noloshaydiyey naftayda barhkeediyey waxaa dumar dunida nool midii ugu nuuraysaa haddii aan ku naawilo jacayliga galaynuda nasiibku dushaada dhigay haddii aan ku naawilo jacayliga galaynuda nasiibku dushaada dhigay haddaad igu noqotay nacab jacaylka nitaaqiyo dhammaan nacabkay la jiraan ogow sina kuguma noco haddaad igu noqotay nacab jacaylka nitaaqiyo dhammaan nacabkay la jiraan ogow sina kuguma noco haddaad igu noqotay nacab jacaylka nitaaqiyo dhammaan nacabkay la jiraan ogow sina kuguma noco haddaad igu noqotay nacab jacaylka nitaaqiyo dhammaan nacabkay la jiraan ogow sina kuguma noco inuu ba qaadanaysaa